haddaad rabto nolol degan inaad ku noolaato, haddaad rabto nolol aan warwarka iyo walbahaarku ku badnayn inaad ku jirto, haddaad rabto nolol aan waxa khaarijka ka ahi aanay ku dhibin, hadduu col yahay iyo hadday colaad tahay, hadday cay tahay, hadday ammaan iyo suldo iyo xoog iyo xoolo tahay, labada midna aanay ku dhibin, aada qof normal oo ilaahay addoomihiisa ka mid a aada ahaateed aada rabto, waxaa qur-aanku inoo tilmaamaya tasbiixda badsada. dunidaynu ku noollay kaa'inaadka joogo oo dhami ilaahay wuxuu inoo sheegay inay wada tasbiixsanayaan. waa taqaleynka un ciddan loo taaglaayay ee kolba meeluba cararaysa. saa daraaddeed baa ilaahay kitaabkiisa wuxuu ku tilmaamayaa 13 aayadood oo qur-aanka ka mid ah oo 11 suuradood ku soo arooray ayaa tasbiixda waxaa loo tiirinayaa kaa'inaadkaasi. fii suurati aracd, fii suurati alisra, fii suurati alambiyaa, tawba, saba, saad, xadiid, xashar, saf, aljumca, ataqaabun, suwarkaasoo dhan iyadoo loo tiirinayo wayusabixu aracdu bixamdih. onkodkaas baa ilaahay leeyahy waa tasbiixsanaya isagoo weliba xamdiga alle ku dheehaya. wasakharnaa maca daawuud aljibaala yusabixna waطayr. nabiyullaahi daawuud ilaahay wuxuu leey waxaan u sakhiray buuraha la tasbiixsan jiray, aljibaal waطayr ayaa halkan ilaahay ku tilmaamaya tasbiixsanaya. bale ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya tusabixu lahu الsamaawaat الsabc wاlأrض waman fiihin wain min shayin laa yusabixu bixamdih walakin laa tafqahuuna tasbiixahum inahu kana xaliima gafuura. cirka waxaa jira iyo dhulka waxaa jira, toddobada cir iyo dhulba waxaa jira, iyo waman fiihinna waxa ku sugan oo dhami ilahay bay u tasbiixsanayaan. wain min shayin laa yusabixu bixamdih, shay ma jira baa ilaahay leeya ilaa iyo wuu tasbiixsanaya ee idinkun baan fahmaynin tasbiixdooda. cid walbana ilaahay wuxuu tilmaamay maslak u khaasa, dariiqo u khaasa ay u tasbiixsadaan inay jirto. alam tara ana allaha yusabixu lahu man fi الsamaawaati wاlard wاطayru saafaatin kul qad calima salaatahu watasbiixah wallahu caliimu bima yafcaluun. mid waliba dariiqo u tasbiixsada buu leeyahay baa ilaahay tilmaamaya. bale waxaa dhacda kaa'inaadka tasbiixdooda in mararka bini aadamka la maqashiiyo. mucjizaadkii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aayaadkii saxaabadu ay aragtay ka dhacday waxaa ka mid ah xadiidka bukhaari cabdillaahi bni mascuud uu warinayo wuxuu le walaqad kunaa nasmacu tasbiixa aطacaami wahuwa yu'kalu buu leeyahy. ibnu mascuud wuxuu leey waxaanu ahay kuwa maqlaya cunadoo tasbiixsanaysa annagoo cunayna, waa la rurayaa waana tasbiixsanaysa. cunadaanu cunaynay oo tasbiixsanaysa ilaahay baa maqashiyey subxaana wa tacaala. wain min shayin laa yusabixu bixamdi weeyaan. waxaa ka mid ah xadiidka abi dar uu warinayo imaam tabraani soo saaray, sheekh albaanina saxiixa ku tilmaamayo. wuxuu leeyay waxaan fadhiyey xaadir waxaan ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam agtiisa xalqo isagoo fadhiya oo gacanta qururux dhagxan yaryar gacanta ku haya, oo ay dhagxantu gacanta ku haya ay tasbiixsanaysa buu leeyay. nebigaanu la fadhinay annagoo xalqo fadhina buu leeyay, keli maaha. weliba wuxuu tilmaamaya wa fiina abu bakrun wa cumarun wa cuhmaanun wa caliyun baa naga mid ahaa buu leeyay. ragga xalqada fadhiyey khulafadaasaa ka mid ahaa. dadka fadhiyo oo dhamina dhagxantaa uu nebigu gacanta ku haya tasbiixdeeda way maqlayeen, iyadoo la wada fadhiyaa la maqlay. intaa nebigu kumuu daynini wuxuu u dhiibay abibakar. abibakar baa gacanta ku qabtay, markaasay tasbiixsadeen qururixi. weliba tasbiixdaana dadkoo dhami waa maqlayay buu yidhi. abibakar baa nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. nebiga haddana wuxuu u dhiibay cumar, markaasay gacanta cumarna ku tasbiixsadeen. dadkoo dhan baa maqlayay buu leeyay. markaasuu nebiga ku celiyay calayhi salaatu wasalaam. dabeetana nebigaa wuxuu u dhiibay haddana cuhmaan buu yidhi. markaasay sidii oo kale tasbiixsatay. markii dambaa dadka loo dhiibay buu yidhi. qof dambena lamay tasbiixsan buu leeyay, dadka iyagii kale mau tasbiixsanin. idan xadiidkani waa xadiid culamadu ay sixadiisa tilmaamayaan. waxaanu sheegayaa in xataa qururux
ay gacanta ku hayaan saxaabadu tasbiixaadkeeda in la maqlayay, cunno ay cunayaan in la maqlayay. kaa'inaadka o dhan baa tasbiixsada. waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaalla abu hurayra warinayo, nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, nebiyada ka mid ah ayaa qudhaanya qaniintay, markaasuu buulkeed meesheedii oo dhan amray in la gubo. dabeetana ilaahay baa u waxyooda, waxaa lagu yidhi ma hal qudhaanyii inay ku qaniintay ayaad axraqta umma min alumami tusabbix, ayaad ummadaha ka mid ah oo tasbiixsanaysa aada u gubtay baa la yidhi. idan inagu maxalu shaahidkeenu u soconnaa waxa weeyaan umma min alumami tusabbix, qudhaanyadaas meesha daadsanayd inay iyana tasbiixsanaysay. ayuha alaxiba, tasbiixaadku sida ay muhimka diintan ugu yihiin, ilaahay subxaanahu wa tacaala 7 suuradood oo qur-aanka ka mida buu ku bilaabay. 114 suuradood 7 ka mid ah ayaa tasbiixaadka ku bilaabma. sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlard wahuwa alcaziizu اlxakiim. suurat اlxashr iyo suurat saf aaya waaxida bay ku bilaabmaan. suurat اlxadiidna ma fi lardi gunbaa ah walardi, sabaxa lilahi ma fi الsamaawaati walardi wahuwa alcaziizu اlxakiim. waxaa kaloo ku bilaabma suurat اljumca, yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi lard almalik alquduus alcaziiz alxakiim. waxaa kaloo ku bilaabma suurat taqaabun, yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wama fi lardi lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa cala kuli shayin qadiir. waxaa kaloo ku bilaabma sabix isma rabika alacla aladii khalaq. waxaa kaloo ku bilaabma subxaana aladii asraa bicabdihi leyla. 7 suuradood. 5 suuradood oo qur-aanka ka midana xamdaladay ku bilaabmaan. alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin, alxamdu lilahi aladii khalaqa الsamaawaati walarda wajacala nuura wadulumaat. yani ancaam iyo baqara iyo kahf, alxamdu lilahi aladii anzala calaa cabdihi اlkitaaba walam yajcal lahu ciwad, iyo saba. 5 suuradood oo qur-aanka ka mid iyaguna waxay ku bilaabmaan maxay? xamdala. haddaba ilaahay subxaanahu wa tacaala tasbiixdaasi siyaqa ficil maadi iyadoo waa soo aroortay 4 jeer, ficil mudaaric iyadoo waa soo aroortay 20 jeer, siiqatu amr iyadoo 18 jeer, siiqatu ismi faacil iyadoo maratayn, siiqa masdara iyadoo 2 goor, siiqa ism iyadoo 41 jeer. yacni 87 meelood bay tasbiixda ku soo aroortay oo 83 aayadood ku jira oo 47 suuradood oo qur-aanka ka mid ah. in qur-aanka 114 suuradood 47 ka mida tasbiixi ku jirta waxa ay tilmaamaysaa kamiga tirada badan leh ee kayfiyaadka tirada badan leh u soo arooray. waa daliilun calaa fadlihi wa jalaalatihi bay tilmaamayaan bay leeyihin culamadu. tasbiixdu weynideeda iyo fadligeeda iyo cinda allaahi siday qiimaha ugu leedahay ayay sheegaysaa bay leeyihiin. intaasoo siyaqoo tiro badan leh inay qur-aanka ugu soo aroorto, 47 suuradoodna ay ku soo aroorto 83 aayadoodoo ka mid ah. ayuha alaxiba, waxaan leenahay marka tasbiixdu siday muhimka u tahay, ilaahay ambiyada inta badan qur-aan ku soo aroortay in badan oo ka mid a tasbiixdooda ilaahay inoo sheegay. nabiyullaahi moxamed risaaladiisa calayhi salaatu wasalaam in alla soo diray waxyaabaha lagu cileeyay waxaa ka mid a in dadku tasbiixsadaan. inaa arsalnaaka shaahidan wamubashira wanadiira litu'minuu biاllahi warasuulih watucaziruuh watuwaqiruuh watusabixuuhu bukratan waasiila baa ilahay lehy. waxaa nabiga loo soo diray in ilaahay la rumeeyo oo rasuulkiisa la rumeeyo oo la weyneeyo oo loo hiiliyo oo alle loo tasbiixsada baa la yidhi bukratan waasiila. waxay culamadu yidhahdaan litu'minuu billah iyo walitusabixuuhu bukratan waasiila baa loo soo diray nabiga calayhi salaatu wasalaam. waxay yidhahdaan nebiyullaahi muusa markuu dalbaday walaalkii in alle nebi uga dhigo, waxay yidhahdaan waa ninkii walaal ugu anfac badnaa baa la yidhahdaa nebi muuse, waayo walaalkii ilaahay wuxuu uga baryay in isna nebi laga dhigo. nebiyullaahi muusa walaalkii markuu rabay in nebi looga dhigo ee ilaahay ka aqbalay maxaa uu ku cileeyey? wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhi ushdud bihi asri waashriku fii amri. sababtu u dalbanayaa waa maxay?
kay nusabixaka kaiira buu yidhi kay nusabixaka kaiira wanadkuraka kaiira ilaahayo walaalkayna rasuul ka dhigo igu dar oo igu xooji kay nusabixak si aanu kuugu tasbiixsanno oo uu iila xoojiyo dikriga ilaahay subxaana wa tacaala rabbow igu dir buu leeyahy nebi yuunusna waynu soo maray tasbiixdiisii iyo in ilaahay yidhi subxaana wa tacaala waxa lagu badbaadiyey qur-aanku wuxuu ka warramayaa nebiyullaahi muusa oo markuu yidhi rabbi aan ku arko ee rabbi yidhi yaa arkari may sida buurtaa eeg ee rabbi buurta tajalli u sameeyey ee buurtii dekan dekan noqotay markuu miyirka ku soo noqday tasbiix buu ka bilaabay falamaa afaaqa qaala subxaanaka tubtu ilayk tasbiix buu ka bilaabay baa la yidhahdaa nebiyullaahi zakariya ilaahay wuxuu weydiistay in ilmo la siiyo isagoo gaboobay ilmihii baa rabbi yidhi waa ku siiyey aayad ii yeel baa la yidhi aayadda waxaa la yidhi 3 maalmood dadka ha la hadlin ramzi mooyaane ishaaraat inaad kula hadasho mooyaane hadal caadi ha kula hadlin laakiin arrin iyada ha ka tegin baa la yidhi wadkur rabbaka kaiira wasabbix bilcashiyi walibkaar baa la faray ilaahay ilmaha waa ku siinayaa laakiin dikriga ilaahay badso dikrigii markii la sheegay tasbiixdu waa ka mid haddana gaar baa loo sii sheegay bay leeyihin oo waxaa la yidhi wasabbix bilcashiyi walibkaar nebiyullaahi ciisa ilaahay wuxuu tilmaamayaa aakhiro marka la soo taago ee la yidhaahdo maa anta qulta linnaasi itakhiduunii wa ummiya ilaahayni min duuni illaah maadaa dadka ku yidhi anigii hooyaday ilaahya naga dhigta waxau ka bilaabi doonaa baa ilaahay leeyay qaala subxaanak maa yakuunu lii an aquula maa laysa lii bixaq subxaanak buu ka bilaabaya nebiyullaahi muxamedna ilaahay wuxuu faray qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiira ana waman itabacanii wasubxaana allahi wamaa ana min almushrikiin dadka waxaad ku tidhaahdaa baa ilaahay yidhi jidkayaan idinku yeedhaya waa kan ilaahay baan idinku yeedhaya anigoo calaa basiira ku sugan ana waman itabacanii aniga iyo intay raacdayba wasubxaana allahi dheh baa la leeyahy wamaa ana min almushrikiin ilaahay baan xumo ka hufayaa inta rabbi ceebaysana kama mid yihi mushriku waa ceeb leh ilaahay sifaadkiisa iyo asmaadiisa iyo magacyadiisuu diiday cibaadadu alla la siinayuu diiday rabbi buu ceebeeyey weeyaan ilahay markaa wuxuu leey waxaa tidhaha wasubxaana allah wamaa ana min almushrikiin bale qur-aanku ambiyada daaye dadka kale saalixiinta ah ee ilaahay jannaadka korkoreeya u ballan qaaday astaamahooda waxaa lagu suntay tasbiixdu inay ka mid tahy inamaa yu'minu biaayaatina aladiina idaa dukiruu biha kharuu sujada wasabaxuu bixamdi rabbihim wahum laa yastakbiruun tatajaafa junuubahum can ilmadaajic ilahay wuxuu tilmaamaya kuwa aayaadka iyaga rumeeyey inamaa yu'min biaayaatina aayaadka iyaga kuwa rumeeyey waa kuwan oo qura baa la tilmaamaya waa kuwa ilaahay marka la xuso ee la xasuusiyo hoobta iyagoo sujuudsan oo wasabaxuu bixamdi rabbihim baa ilahay yidhi ilaahay u tasbiixsada iyagoo ku dheehaya xamdiga alle waan isweynayni ku jirin baa rabbi leeyahy masaalixiinta qura maya ilaahay malaa'igtu inoogu tilmaamo innaa lanaxnu lmusabbixuun bay tilmaamayeen yusabbixuuna alleyla waannahaara laa yafturuun watara almalaa'ikata xaafiina min xawli alcarsh yusabbixuuna bixamdi rabbihim malaa'igtaa ilaahay wuxuu tilmaamay inay tasbiix laazimaan ahlu janna dadka khayrka badan leh ee guulaysta ilaahay wuxuu tilmaamayaa inay ku dhawaaqayaan dacwaahum fiiha subxaanaka allahuma wataxiyatuhum fiiha salaam waakhiru dacwaahum an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin xamdiya tasbiix baa ilaahay kaga warramaya ahlu jannu dacwaahum fiiha subxaanak ayaa rabbi ku sheegaya subxaanahu wa tacaala ayuha alaxiba tasbiixdu diinta markaa maqaam sare kaga jirta dadkan dambe waxyaaba bidaca ama bidac la mooday baa la ysku dayay in lala dagaalamo laakiin waxaad moodaa in la raaciyay wixii diintu faraysay dadka waa suufi iyo waa kan baa la yidhi dabeetana dadka cidda ugu fiicani fariidka ahi waa ninka uun salaada yara haleela markuu ka baxo
tira aan la garanayno faraacaynkaa la yidhahdo subxana allah inta la yidhaahdo dhameeyo iska taga. laakiin nolosheenna waxay u badan tahay in tasbiixaadku ku yaraadeen, iyadoo aynu dadkii laga yaabo inaynu ka mashkilad badannahy oo ay ahayd innaga subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiimtu inay nagu tiro badato. nabigana calayhi salaatu wasalaam xadiiska muslim warinaya abi dar uu ka soo wariyey waxa uu la yidhi, nabigu wuxuu ku yihi alaa ukhbiruka biaxabi alkalaami ila allah, waxyaabaa alla u jecelya ma kuu sheegaa buu nabigu ku yidhi. haya noo sheeg baa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo. ina axaba alkalaami ila allahi subxaana allahi wabixamdihi buu nabigu ku yidhi. kuwa iyagu alla ugu jecel yahay waxaa ka mida subxaana allahi wabixamdih. xadiiska labaad abi dar uu warinaya wuxuu leeyahy, nabigaa la weydiiyey ayu lkalaami afdalu, warka maxaa u fadli badan? nabigu wuxuu ku yihi ma stafa allahu limalaa'ikatih, wixii alle malaa'igtiisa u doortay aw licibaadih, oo waa maxay subxaana allahi wabixamdih. idan ayuha alaxiba, tasbiixdu ama wardigu wuxuu ka mid yahay alcibaadaat almutlaqa, cibaadaadka ay culamadu yidhaahdaan, cibaadooyinka aan waktiga lahayn, shuruud lahayn. waxaa laga yaabaa salaad, soon, xaj, shuruuday leeyihin, waqtay leeyihin, waa la mudeeyey, waqtiyadaasunbaa la sameeyey. ama tasbiixdu waxay ka mid tahay maxay? cibaadada mutlaqa ah, fii ayi makaan iyo fii ayi waqtin ba aada la iman karto. waxaanu nabigu inoo tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam adkaarta ugu fiican inay ka mid yihin subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim, subxaana allahi wabixamdihi cadada khalqihi waridaa nafsihi wazinata carshi wamidaada kalimaati. haweentii wardiday uu nebigu ku soo noqday wuxuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam intii ay wardinaysay wax ka fadli badan isagu yidhi, oo ah weedhahana subxaana allahi wabixamdi, ilaahay baan xumo ka hufaya anigoo ku dheehaya mahadnaqiisa, cadada khalqihi, tirada makhluuqaadkiisa, iyo zinata carshihi, iyo ridaa nafsihi, iyo midaada kalimaati. idan ayuha alaxiba, tasbiix ama tacaamkaa ha noqoto ama salaadba ha noqoto. cumar bn lkhadaab maxaa laga sheegayay, walow kuntu musabixan la atmamtu. salaaddii qasriga ahayd markuu ka warramaya ee ciddii dheeran muxuu yihi, walow kuntu musabixan, haddaan tukanayo sunno, yani haddaan tukanayo anigoo safara, tafaralkaa baan dheerayn lahaa buu leeyay, walow kuntu musabixan la atmamtu. idan tasbiixdu waxaad la yaabto haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad istixsaansato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad istiqraabsato haddaad aragto waa la tasbiixsadaa, waxaad inkaaraysa haddaad aragto waa la tasbiixsadaa. sharcigu intaba wuu soo arooriyey. shiddadu markay jirto waa la tasbiixsadaa, waa inaga aayaadka soo aragnay, walaqad naclamu annahu yadiqu sadruk bima yaquuluuna fasabix ilaha yidhi. nicmada marka la helo waxaa layna faray faraskeenna ama daabadeenna ama gaadhigeenna markaynu fuulayno inaynu maxayna idhaahno subxaana aladii sakhara lana hada wamaa kunaa lahu muqriniin wa ina ilaa rabbina lamunqalibuun. waxay culammadu yidhahdaan tajadud nicam, nicmo hadday kuu cusboonaato, falamaa afaaqa qaala subxaanak, wuu caafimaad qabay, dabeetana wuu miyir beelay, dib buu u caafimaaday. waxay yidhahdaan tajadud nicamka waxaa la yidhahdaa subxaanak. waxaa ka mid a markaad ducaysanayso waa laga horaysiiyaa, fasabix bixamdi rabbik wastakfirhu baa ilaahay markaa yidhi. waxay culammadu yidhaahdaan haddaad dembi gasho waa la tasbiixsadaa, qaala awsatuhum alam aqul lakum lowlaa tusabixuun, ama ducadii allahuma anta rabbi laa ilaaha illaa ant. waxay sheegaysaa in la tasbiixsado. markaad wada eegto nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahy, man qaala subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim, maalintii 100 jeer ninka yidhaahdaa dunuubtiisa waa la dhaafaa, wain kaana midlu zabadi lbaxr, saxiixeynku ku yaallay, xataa hadday xoorka badda leeg tahay, at least xataa haddaynu idhaahno sakaa'irta, oo sakaa'irta maxaa ka badan? subaxii markaad soo toosto ilaa iyo inta gabalku ka dhacayo, ama adaa hadlaya ama mid hadlayaa dhegaysanaysa, imisaa khayr aad u malaynaysa? waagu markuu baryaabaynu war bilownaa,
haddaanad adigu warramayna mid warramaya dhegaysanaysa ama tv ha ka warramaya ama raadiyo ha ka warramaya ama telefoon ha kuugu warramayo ama suuqa ku sheekaysta mid warramaya warkaa imisaad isleedahay baa kitaabka khayrka ku jira imisaad isleedahay base kitaabka sharka geli kara idan waxaad maanta cala alaqal waxaad saqaa'ir gashay haddii lagaaga dhaafayo subxaana allahi wabixamdihi subxaana allahi alcadiim ood 100 jeer tidhaahdo wax la dhaafa maaha kurbada iyo mashaakil